And bro nuraabko horta ani hadalkaaga waa dhageystay videoga soo dhigtay because waxaan u maleynaa inaan meel xun ka taabtay aan soo kulaatay waxaa dhahday adi beesha jareer weyne ma matishitid mitihid horta qof kale qabiilkiisa laga saarayo ma laha maanta waxaad ku nooshahay waa jareer waxaad wax ku noqotay waa jareer waxaad ma 24 saacad ku tugsatid waa jareer ma fahante jareerna waa dad nasab dhiman ma aha waxaa tiray hadda ka hor aan ku dhahay live soo gal bikola wax loo aruurina pro horta ani waxa i qusaynin inaan faraha gashto horta waa qalad mid hadeertaana waxa i soo kiciyay aan video shalay u soo dhigay marka dhahaysay gabadha Cabdirashiid TikTok furatay waxa li aruuriyay tiri $1 hataa hadaa siisin meel fiican ma geenaysa meel xun ay geeni midka adiga ilmahaas aad ku aruursanaysay aad lacagaha aad dadka umada Soomaaliyeed aad ka qaadanaysa meel fiican ma geenaysa marka dhaysid $1 gabadha la sii meel xun ay geeni pro horta waxaan ku sheegaa dhageyso dadka maanta adduunka ka taliyo laandheeraha oo sida libaaxa oo kale waa dadkan ku hor fadhiyaan ee jareerta sharafta leh jareerna maanta waxa waa dadkan madax ku yeeshatay dadkaad 24 saacad ku tugsatid dadkaad 24 saacad dhahdisaan waa bro waxaan ku leeyahay horta anaka ceeb iyo caytin waan ka dhannahay aniga waxaan live ku dhahay iyo waxaan TikTok ku dhahay ana i qusaysa anayna taas meel ila tagi adin meel ku lama tagooso bro ani waxaan ku sheegaa waxa xishmad ku wanaag ku mar kale horta inaan ku soo jawaabo ama nuura saan aan ku dhaho ma jecli ila iridan aniga aan ku furay way ku furnaan doontaa ilmahana dambe xaraanay ka tahay inaad si been aad ugu qaraabatid aad nolol ku samaysatid aabiilatid waxaad ka heshid xaraanay ka tahay indhaha aan kugu soo aadiyay sida tooshka oo kale way kugu iftiimi doonaan adiga waa gubatay aada u gubatay because waxa ka gubatay toosha kugu iftiimi tooshkan kugu iftiimi 24 saac ilmaha ku tugsanaysa waraa xooga leedahay shaqayso ilmaha waa guurisay waa aroosisay salaas awaalan kaaga hayna waa maasanta ilmaha ka dhaxbax reerkooda meel ka fadhiiso dantaada raaco 24 saac maxaa u dhax taagantoo aad inta meel soo istaagtid oo u leedahay waraa anaka sharafteena aadan u xishmeena aadan u dhowrna anaka manahno dadka qaar bro adiga nugu dulnool anaka kugu dulnoolno adaa nugu dulnool madaceena 24 saacaysa dadkeena ku tugsata adaa nugu dulnool waxa ilmaheena aad ku tugsatid habeen iyo maalin cunta aad ku nooshaa keep going saaxib yaal mac salaama asxaabay commentiga jawaab noogu soo bixiya waxaan rabaa arinta ay ka hadashay walaasheen Fartuun Balbalaarka inaan laba arimood ka iraado ilaa 3 Fartuun horta walaal qar iska tuurka waa taa social media adoo ordaayo ku soo gelisay way qar iska tuurka mid lagu yaqaan waa mid hadda anaga ku barneen horta ma mid kale 3 qodob aan rabaa inaan ka soo qaato muuqaalkeeda soo duubtay 3 qodob waxay tahay qodob waxa ka hadashay waxa tir beesh jareer weyne horta waa dad sharfan dad xitaa inaan caay iska daayay hadal xun xitaa aan dhihi karin waa dad sharfan sidoodba taas markii laga soo haro waxa tiri يعني بيكولي عبدالرشيد أرنتود أدو كهالله وحاسو قادتي باش جريروين وحتى رحت مال انت شوف فريستان ما توقصدان وحا أمالينا يا هورتا دادكو أما أمد الصوماليات باهيدا ولو ودا سميان باهيدا ولو ودا سميان إلهي قبيل قونين وحو مسين قبيل باهي كما ديجين يعني باهيدا أمد الصوماليات وودا سمانتاي قف كستو صوماليا دادك مدادك أنا عاوية أما أنا معناها سوشيال ميديا وصو فريستو horta ma aha beesh jareer weyne kaliya waxa waaye waa dad soo jir waaya qof kasto oo markaas baahi aan arko inuu baahan yahay rabana in wax loo qabto social media inta soo fariisto ama waxaan dhahaa qofkaas dad samafalayash waxay sameeyaan waa kaligii ma aha qof kasto samafal wuxuu sameeyay waay arinta bikoli Cabdirashiid markaan dib ugu soo laabto waxa tiri beesh jareer weyne bas ku soo qaybtiya Soomaalina waa ka dhaxsaarta ay bikoli Cabdirashiid waxa tiri Soomaali ma aha beesh jareer weyne kaliya waxa tiri aan arinta kala hadashay باش جريروين وحلو ولي واحد الغاب مقالات كسماعي جوغان عادي سو جريروين متيد
arinta Bicole anoo ku jiro inta hadda kahor imaatay xitaa live aan ku balamiy aan ku dhahay war walaalkaaga Bicole guursanaye live kaas caawa aan wada galno Bicole arintiis wax yar ka dhimanay kaale aan wada dhameystir inta ku dhahay soo taa dhuumatay maahayn mid kale qar iska tuurk inuu wanaagsanina ku sheega maalmo ka hor waati inta social media soo furiisatay aad tiraahday aniga hadii $1 liisiyo waxaan ka baxayaa diinto dhanba waa ka baxaa hadii $1 liisiyo diinta dhanba waa ka baxaya Fortuna horta qar iska tuurka ma wanaagsana qar iska tuurka ma wanaagsana adi socialay soo bees jiray weyn ma ahayn markii adeys inta meel soo furiistid adeys aniga diinto dhanba waa ka baxaa soo maxaa ahayd macnaha mid kale adiga matalaad uma watid bees jiray weyn ma matashidba gabar bees jiray weyn matash inaad ahaynna ku sheegaa adiga waa qofkii macnaha maalin walba intuu meel soo furiistay aan mar habar gidina ahay mar abgaalan ahay mar intaas ka dhacday mar beesheed social media ku dhacaynayso matalaad haba yaraatay adi waxa malena beesh jiray weyn hadii aqli leeyahay matalaad uma watid ba adiga fahamisa kamid kaliya aan rabo inaan ku dhaw xitay horta ani beeshaan waa aqaana dad wanaagsanaa ku jiro mar daraad markaan ka hadlay gabadhii masaakiinta ahayd oo beeraha joogtay Xaliima waxa waaye dad weli dadkeeda u badan yani markii laga hadlo waxyaabaha $1 dadka ay soo diraan dad muxsiniin oo khayr Allah siiyo laakiin dadka ka diidiyay waa dadkeeda beesh jiray weyn waay oo dalka Mareykan joogo waay lacagihii lagu daaweyn lahaa oo indhaha lagu fiiqi lahaa wax dhanba wixii dhul loo gad lahaa xitaa wala si diyaariyay aan runtan ku sheegaa beesh jiray weyn dad sharfan waaye familkaana famil adi aku dhex dhumaysto dadkan dad ina macnaha maxaa la jiray oo adigoo taagan oo ay ku baahan waa intii Cabdirashiid xambaartay 2 maalin ka dhaqaajisay way Bicole arintiis anoo ku jiro inta imaatay aan ku dhahay war Fortuna caawa waa ku jira muuqaalkaas TikTok ku jira Fortuna caawa live aan wada galno adii teamkaaga inta idin baliyaha habeenkii ii gambisay marka walaalay horta beesh jiray weyn matalaad umatid qar iska tuurkan iska dhaafa ku dhilaan aad iyo aad u maasantahay